كلنا إن شاء الله تعالى ويكفى إلى السنيان إن شاء الله تعالى لأن يردوا وحي magacaabeen inaan ka hadlo sida aad aragteen oo xayeysiinta ay qorteen ama iclaanka ay qorteen ku qornaa iswaafajinta cilmiga diiniga ah ama maadiga ah iyo kan diiniga ah cilmiga sharciga marka halkaasaan wax yar insha Allah taala ka oran doona ilaahay idankiis wuxuu ilaahay subhanahu wa taala iga waafajiyo awalan ugu horeyn cilmiga kelimada cilm waa kalimaadka ugu badan ama aqoon ugu badan ee quraanka kariimka ku soo noqota sunnada nabigana kaleey sallallahu aad ugu soo noqota sheeguna hadii uu soo noqonayo siyaabo kala duwan loo dhigo oo magacyo kala duwan lagu keeno oo si badan loo faahfaahiyo waxay tusinaysaa bay yiraahdaan muhiimadda uu leeyahay marka cilmiga muhiimadda uu leeyahay halkaas ka muuqata mid labaad waxa weeye cilmi marka quraanku kariimka ah uu ka hadlayo ma kala saaro cilmi diini iyo cilmi adduunyo ma kala saaro cilmi buu fadligiisa ka aqoonta marka waxa halka ka fahmaysaa aqoontu hasii kala fiicnaato hasii kala fadli badnaato laakiin guud ahaan aqoonta waxtar kalihi inay naafic tahay oo fiican tahay aqoontu sideedaba jahligeena ka fiican tahay ka fadli badan tahay marka quraanka kariimka ah jahligana waa wax ilaahay laga magan galo oo laga cararo oo ilaahay la weydiisto inuu ilaahay ka saaro way jahli ama aqoon darrado nooc kasta tahay mid diiniya iyo mid adduunyo iyadoo kala baxsanayn نبي هذا القول عليه السلام بواحد كسر نقولنا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إلهي سبحانه وتعالى رسولك عليه الصلاة والسلام مركأوا وعدنا أيوه فلا تكونن من الجاهلين النبي الله يوسف هذا الكسر يقول جلتي أصبر إليه وأكون من الجاهلين عليه السلام مركأ جاهل هو وحي إلهي لقى مغنقله إلهي سبحانه وتعالى لوغا عررو علمي قنا قودهان إيضا كلا صارين علمي أدون علمي الديني علمي قصديسة إي أقونتو أيي أفضل بلانتاي تاسو أخذ بكوات أخذ كلا بعض حوي علمي قاس مركا أقونتاس تنقو شرف بدني والعلم بالشريعة علمي شرعي ee ku baraya Allah subhanahu wa ta'ala weyn ee ku baraya iimaanka ee ku baraya amalka saalix ah ee ku baraya wadada toosan oo mustaqbalkaaga aad u mari karto ee ku baraya saadada adduunka iyo aakhirada waxa aad ku heli karto ku baraya ee ku baraya aakhirada iyo maxaajir ee ku baraya wax ka qarsoon adiga oo hadda aadan arkayn علوم ka qarsoon waan cilmiga sharciga ah baa lagu helayaa oo quraanka kariimka wuxuu noo sheegayaa wax horay u dhacay wixii hadda aynu isku xukumi lahayn ama ku socon lahayn wax iman doona oo barzakha markaan geeriyoono kadib oo dhimano qiyaamuhu intaanu kicin ka hor xagee la jiraa kadibna xagee la tagayaa qiyaamaha markii la yimaado oo dadka dib loo soo saaro maxaa dhici doona xagee dadku ku kala dambayn doona jannada iyo naarta maxay kala tahay yaasa kala aadi doona degsiimadeedu see tahay cilmigii aakhiro iyo cilmigii adduunka labadiiba quraan kariimka ah uu noo kulmiyay marka cilmiga ugu fadli badani waa al-ilmu fillah cilmiga ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu barto iimaanka lagu barto amalka saalix ah iyo wadada toosan ee siraadka mustaqiimka ah lagu barto waxa ilaahay xalaaleeyay iyo waxa ilaahay xaraantimeeyay lagu barto cilmiga kaasa ugu sareeya waana kan fadli badan uu ku soo arooray fadli badan uu ku yimi oo ilaahay darajaad dadka kor ugu qaado adduunyo aakhiraba oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu fadli yeelay ehelkiisa dadka u saaxiibka ah aqoontaas إلهي سبحانه وتعالى وفضله يعني
ومرخاتي قشري إلهي سبحانه وتعالى وحدانية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط كعلم لنا وكتر المامي إنه يهندتك إلهي كعب صدا وخشية له وتقوى له إنما يخشى الله من عباده العلماء هو علم لنا وكانوا إلهي درجات وقاضيو علم قاسبو كوت المامية وحوي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وكوا مية اسكو مديهن كوا أقوان تله أو علم قاس إلهي سيء يكون أنقرنين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مركا علمك سبق أو أن هذا لك صارين أي علمك فائدتي سئية فضلك ستلمامية آياتها القرآن الكريم نبي عليه الصلاة والسلام وتلمامية سدا إلهي سبحانه وتعالى ودرجات أصيو ويعني قفك عالمك هي وقفض البنية هي قفك كلاتو أن عالمك هي أما عابدك أهو حتى اسك عبادة لكن أن علمك هي كفضلي على أدناكم كفضلي على أدناكم يعني النبي عليه الصلاة والسلام فضل جيسة إلا أمضى كانوا وهو صي أنت قد حيسة أيها قد حيسة قفك عالمك هي قونت له إيه قفك عن لهين أنت أمرك عن قدم كاس كسر جود من علمك جودهان علمك الشرعي جانا إنه يكون مهم سيء سؤال شيء اللي يرادوا وحي أهاي سيدي سوا فجن كرنا علمي مادي جاها دنيوي جاها إنام برنو وكان جامعة اللي وجرو وكان الدنيا اللي شقينا يو وكان نرش الرجوه مرينا يو وعلمي مادي جاها سيدي بانو أو يعني هو فجن كرينا أما سوا فقيان علمي ديني جاها جوابته يلا كوبا اسم الدينيان علمه ما ديره لكن جاهلني مو أي كتمة دا أما أقون ضر دينعي نقطها نقطة علمي الديني أما الدنيوي جهلي قلا أما فهم قلا ذا أو قلا بعد دقالك كيما لا اسم الديدنا عالمك هديئو يحي مثلا عالم في الطب كسوقات ميديسين بو عالمك يحي هندسة دولكا جيولوجي بو عالمكو يحي هندسة بيرها يدولكا وحا كسو بحية مراها سيدا الله بيرو بو عالمكو يحي وعلم مادية هندسة برتا بر وحي لما ميكانيكال انجينيرينج يوحي لها المالا أوردن بر يتكنولوجي بو مثلا عالمكو يحي أما عالمكو نغضي أما برتي وعالم في علمه مدي يسوع علم الديني اسم الدينيان وايو سكسور عن لبضوا إلهي با سبحانه وتعالى يكيم هذا إلهي بكيم هذا مركا علمي قاس دول كانوا قبرتين دول كان إلهي با أبوري قوانينتي إلهي سبحانه وتعالى قلي يسيدوا أسميي بابني آدمكو انتو ددالو وحكبرنا معايا مهمة لأن انت أسواي كورنتادن هذا إيو إلكتريكان إيو هودن حيالهم كجرين مياني أهين وحرق جري مثل مجرين وحي إلهي ورق وقو أبوري مطاي مثل معها هوري وقو أبورني علمي مادي إيو برشاد أيان قارين وقت قاس إن كورنتادن الله صوبحيو انت أسكري واي علمي با هورمري أقونتي دادك بني آدم مركي هورمرتي أيي وحي أغاتي أقون إلهي سبحانه وتعالى وحو ميشان مرهر القليي ونفع بني آدم كأوله وين استعماله ساس درتين أيو إلهي سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليل علمنا وحاد وليبا كهيسان ووحاد ويا بني آدم كمرمر بو موقتهاي حوغا أقونتا يرى أوليه هاي عيال لو وينانيسا مركاسو وحيالا آنو قري كرين سيدي الروح ذا يويديين يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي يا أرهن سر إلهي وي وروح ذا إله هذا علمي أي قاري كران مجرتو بني آدم وليكو مقاري روح ذا حقيقو جرتها سيديتها
sidee u egtahay midabkeedu muxuu yahay dhadhankeedu muxuu yahay xaggay ka baxda xaggay ka soo gashaa qofku isagoo dhintay un baan arkayna xaggay martay intay ka baxday ma aragnaa meelay ka baxday meelay martay intay leeg tahay jurmigeedu muxuu yahay ma qul الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا مرك حدكم هذا الصبح هذا يروح والبا معها إلى علم جيد كيني كرتان وحا هذا يسان ووحيا مركا اسم الدين يعني علنا معها قفكم مسلم كان مركا قال يري أرضي دينا خاصة وحوي مجالك أما شيء وبرنايو هرتو حوقها صار جامعة ديسا علم المادية وبرنايو وعلم اللي باهي diintuna labadaba waa ina amraysaa waxayna u timi nolosheenna adduunka iyo nolosheenna aakhirada labadaba inay nidaamiso maadaama labadiiba in la nidaamiyo loo baahan yahay waxaan u baahannahay cilmigii diiniga ahaa ee kitaabka iyo sunnadana dad ku takhasusa luqadii carabiga ahayd fiqhigii xadiiskii shareecadii axkaamtii fahamkeedii xalaashii xalaantii cilmigii wax ku takhasusa u baahannahay isla mar ahaantaasna culumtii kaleeto adduunyada aynu ku shaqaysanaynay ee dhulkan ku camiraynay oo ilaahay ina faray inaynu dhulkan camirno oo ka shaqaysano kuna shaqayno dadkana ugu shaqayno ilaahay ina faray iyadana dad ku takhasusa oo aqoon u yeesha ayaynu u baahannahay labadaasu marka ay kulmaanna waxay isugu imaanayaan ilaahay inay labaduba addoon u noqdaan oo caabudaan oo waddadiisa raacaan oo u hoggaansamaan halkaa inay isugu yimaadaan baa la rabaa ma la rabo in la dirirsiiyo oo kan marka cilmiga maadiga ah baranaya uu ismoodo inaanu u baahnayn cilmigan diiniga ah ee iimaankiisii iyo cibaadadii ilaahay iyo barashadii ilaahay iyo axkaamtii ilaahay iyo hanuunkii ilaahay uu bani aadamku u soo dejiyo ku socon lahaa ee birtan iyo aqoontan maadiga ah lagu hagi lahaa inuu isu malayo inaanu u baahnay marka cilmi buu bartay adduunyo oo maaragtay maadi ah meel saruu ka gaaray marka uma baahna cilmigan diinta ah taas waa qalad waa tii qaladkii ay Oroba mar hore ku dhacday oo culimada qaar ay gubay oo kuwii kaniisadii iyo la dirirsiiyay iyo culimadii technology-ga iyo maadiga sameeynayay kadibna dagaalkii ka dhacay qolo kale gubtay kadibna ay kala joojiyeen oo dhahan marka diintana halka inaga xira kaniisada halka inaga saara maxaan ku sheegay cilmiga adduunkana halkaas hay noo socdo oo meesha ay ka timi caalimaanimo yani diin shaqo leeyihiin caalamka kaliya baan annaga ku soconnaa cilmaaniyadan dadka qaarkood waxay u masaa cilmi inay ka socoto cilmi kama socoto cilmaaniyadu cilmi maaha cilmaaniyadu waxa weeye waa maadiya caalamka way ka socota caalamiya wey cilmi caalami baan rabnaa adduunka wixii ku saabsan diin shaqo kuma lihin saasay u kala saareen marka de mulxidiintii baa gelaya wax walbaa gelaya oo qof kastoo diintii la diriray baa gelaya innaga saas maaha innaga kitaabkeenna qur'aanka ayaa cilmigii diiniga ahaa iyo cilmigii maadiga ahaa labadiiba walaalaynaya wuxuuna ku walaalaynayaa labaduba inay ilaahay ka yimaadeen ilaahayna addoon loogu noqonayo oo lagu caabudayo ninkaas cilmiga maadiga ah ee geologiga bartay cilmigaas ayuu ilaahay ugu cibaadaysanaya sida ninkan faqiih ah ee fiqiga xaaraanta iyo xalaasha bartay kitaabka iyo sunnada iyo xadiiska bartay ugu cibaadaysanayo buu kanuna ugu cibaadaysanayaa oo niyadda u gashanaya inuu ilaahay addoon ugu noqdo dadkana ugu adeego naftiisana ku anfaco aadanahana ku anfaco ayuu ugu shaqaynaya ummadiisa ku anfaco dadka ku anfaco wixii dadka wax tarayana guud ahaan dhulka ayaa ilaahay ku baaqi yeelaa waana daayaa dhulkuna jooga wa amma maa yanfacu nnaasa fayamkuthu fi lardi marka xataa qofku hadduu cilmi maadiya iktishaafay oo uu sameeyey oo discover gareeyey cilmigaasuna uu bani aadamka anfacayo dhulku baaqi ku noqonaya cilmigan korontada waxaa laga yaabaa qarniyaal ka hor dad baa soo saaray cilmigan nalkan noo baxay qarniyaal ka hor dad baa soo saaray laakiin waa baaqi wuuna sii soconaya laanna waa wax dadka wax taraya
wixii dadka wax tarayana baaqi buu noqonayaa ummaduhuna way kala qaadanayaan mana uu lahaa jinsiyad gaara iyo caqiiqda gaara waxa ummadda wax anfacaya qofba waa siduu ugu cibaadaysto qofna waa ku kufriyey oo gaalnimo iyo isla weynaan buu ka qaaday qofna ilaahay u hogaansamidiis buu ka qaaday horta cilmiga intaas aynu yani maaragtay fahamkaa hore inaan meesha dagaal jirin in labadaba lagu cibaadaysto cilmiga diiniga ah iyo cilmiga dunyawiga ah ee naafica ah in labadaba lagu cibaadaysto diinteennu inay labadaba inay walaalaynayso u timi ummadeenna iyo inagu dadkeennu inaynu ku amranahay labadaba inaynu baranno ilaahayna ugu hogaansano intaa haddaan uga soo baxo dhalinyarada dhegaysanaysay ama muxaadaradan loo diyaariyay waa dhalinyaro ardaya oo jaamacada dhigata waxaan leeyahay cilmi kasta oo naafica ummaddiina wax taraya ama ha noqdo mid nadariya labada cilmigu labu noqonayaa badanaaba jaamacadahaad ku dhiganaysaa cilmiga waxa insaaniyaadka la yidhaahdo ama social sciences ma garanaysaa iyo cilmiga sayniska ah ee technicalka ah ee technologyga ah ee farsamada iyo sayniska ama culuumta waxaa la yidhaahdo iyo midka nadariga ah ee social scienceska ama culuum al-insaaniya oo maxaan ku yeesho sociology iyo psychology iyo idaara iyo maamul iyo siyaasad iyo wixii laha taariikh iyo juqraafi iyo wixii la halmaala ayay adab iyo literature iyo luqad iyo waxaasoo dhan bay noqonaa baa gelaya cilmina waxa weeye farsamo iyo science iyo technology oo furuucda handasada oo dhan iyo farciyadeeda kala duwan dhisma hadday tahay bir hadday tahay wax samayn hadday tahay warshada hadday tahay masaanic hadday tahay ayaa halkaas iyadana farsamo gelaya طبigii oo dhan baa gelaya wixii medicine oo dhan la halmaala ilaa mukhtabaraad ilaa iyo maaragtay wixii la halma waa cilmi farsamo iyo bir iyo technology iyo science ya cirka iyo dhulkaba gelaya labadaba waa u baahannahay oo midna nadari weeye waxbuu hagaa waxbuu maamulaa waxbuu bani aadamka dhinac maadiyabuu kala dhaqmaa midna wixii aan ku dhaqmi lahayn iyo waxaan isticmaali lahayn iyo aaladahan aan isticmaalayno oo dhan buu soo saarayaa marka in laysu miisaamo weliba midkan dee cilmiga ah oo sayniska ah baa ummadaha soo kacaya developing countries haddaynu inagu soomaaliya oo kale nahay ummadaha soo kacaya ayay aad ugu sii baahan yihiin maxaa dhacay waxay rabaan inay dee gaaraan adduunku sida uu u dhaqmayo iyo qaabka uu hormarayo ayaa loo baahan waa laga yaabaa inuu kan kale ka dhib badan yahay ka waqti dheer yahay oo hadda ardayga masalan managementiga dhiganaya ama xisaabta dhiganaya waxaa laga yaabaa 3 sano 4 sano inuu ka dhamaado meesha 2 sano xataa ku ruf inuu yahay laakiin ardayga dhakhtarnimo ama engineering xog dheer ama technology adag ku takhasusaya waxaa laga yaabaa sanawaad inuu ka qaadato 5 sano 6 sano 7 sano 8 sano يعني سيو إنه عالم هير كجار وحلاقة وقت دير وتواصل إيه وقت دير إنه بحث هاي مركا لو ضو بحث هاي كنا وأصيب بحث هاي أنت أصلا واهر وأرنكا عن معركة كوسة المامي وهي هي أنت هذا كسو جدبنو دنيرو علم جان أدونك علم جان آخره إنك الدين تنا سان شيء ويسواف صنطه كتاب القرآن كابي لبدون كجران كتاب القرآن علومتي إنسانية أهيد إيو علومتي تجريبية أهيد أما إكسبيرمنتية أهيد أما تكنيكال كوحا كنت تمالا أفقال أما فرسمو أهيد يقعن كسمين يا علمية أهيد لبضبا وتلمامية كوانا واكسي حال دارانيا كتاب القرآن كماها كتاب جغرافي إيو ساينس إيو ميديسين إيو ميكانيكال معها لكن وكتاب هنون وكتاب مامل وكتاب سمين إنسان كسوي توصن يسود اللي ترن الدون آخره أقول ديني أقول مادي يسود اللي ترن أركتب في عن له إلهي كحرا بني آدم كسي عدالة ونكسن أردقه وضد توصن كسو عضه إلا مستقبل كيس وجنة إلهي ويبوها كجارو بني آدم ساس روائن وصوصار القرآن الكريم كتاب هنونوي إن هذا الكتاب يهدي للتي هي أقوى كتاب كان إنه هنونية بالله صوت إلهي سبحانه وتعالى
هدى للمتقين جعلناه نورا نهدي به من نشاء. مركا كتاب القرآن كان مركا مفرسنو مع علمي ديني كلية أيو حنبارسية ما يكون كانوا إشارية تصاليال بنغسيرية ما هساني كتاب ساينس لكن وحوية ساينس كا أما علمي أما أقونت النوع كستأي نقطة لبدي النوع عن شيغني مد الليتراجر كاهو أدبي كاهو نظري كاهو يمد علمي لبديبا وسيدين وغشقيسان لاين وغحيال داران لاين أيو إنو تصيح إشارات بونا نسينية إكسام بلا سوق هذا المركة كتابك إيمان كيبو نوشر رحية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون مركا إيمان كيبو إلهي آيات كتلما وإلهي للرميو ملايكتي للرميو كتبتي للرميو فسوشي للرميو عبادة كتلما من صلاة سكلي يا إلهي سبحانه وتعالى هو قاسم كيسي أخلاق دي وناكسنيد وكتلما بلنت أوفنتي دي أمانة دي قدشة دي إحسانكي وناكي بلشدة أتقول أنا من هاي أو مساكينتي يا فقراتي يا أغونتي يا ضدك باهن يا ضدك دباتيسا ونحرس الشلون أخلاق دي وناكسنيد أركانتي دي أو صبركي يا طلقاتك يا هكسشدي دباتويك يوحي ما النعمة إلهي كسية كل شكر له وكما هسو كأنما آيات يسوق وبطي بني آدم إيمان أهان عقيدة أهان أخلاق أهان عبادة أهان دقن أهان إنها هو كسوقتي كواس ومتقين تكواس تصالي آية ذكر أظفر بدن أي إله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صلاة ذي الخشوع مركب صلاة كلي مشغول زين والذين هم عن اللغو معرضون آية ذكر لغو ما هي عن تربقش كي شك برلي ده أما وحيالها أن لغو هذا الكباطل كعبالي هذا الكحن عن فعلا حق عن هاي معصبة وحبو حنطي وحبو عايي وحبو الضري وحبو حفشاقي وحبو مارتي أفحمو وحاصودا ولغوي يعني هذا الكعب في عينين وباطل كعب والذين هم عن اللغو يصير خشوع عباده حجي يعني آياته هذا وحي كهد ليسي عباده إيمان هذا روحي كهد ليس أخلاق قف كمونك أولي إلا رب القرآن كو إنو سميو مركا أخلاق ديسي أما دكتور هالنقضو أما شيخ هالنقضو أما وداد هالنقضو ورانلي هالنقضو بيرلي هالنقضو جيل هوتو لو هوتو على قربها لغوي جنا إنه يسكت أيو هدو عبادة سنة أيو في عن أخلاق دي سنة إنه في عناده هذا الكيس هو إنه في عناده ما هكذا عبادة سنة في عزتك قارقش مسلمين تقار أفهمين لما ذلك يسا صلاة قاعدة كوها صلاة دي هذا عن شيء هدو منا موسى بحنا عايديس أفحمديس يعني وحقهم قاعي أن لو أتكيسنك إذن لو أتكيسنك إن الله لا يحب هذا إلهي مجعل وفق مجعل إن الله يبغض الفاحش البذيء بيقول النبي عليه الصلاة والسلام قفك أفكحن أفك قشن لها إلهي مجعل هذا الوناس يقول ما حد قاعدة هي أساس إلهي تجي وحوي هديب الله هذا رايو هذا في عن وعدالة الوهد وإذا قلتم فاعدلوا وقولوا للناس حسنا وهذا العام أهوى قفنكم خاصها قال إيه مسلم إيه مدو إيه عدان إيه غني إيه فقير إيه مدوين إيه مدير إيه قل الناس حسنا ضدك بني آدمك هذا الفعل وقاعدة براي مركو إسلام وهو سيدو كانت تقول ولا تطع كل حلاف مهين
هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم سقال صفو أو كشيء يحن أو أي تهي ضد كله إلا إسك إلاليو لقال له يا نميم هذا ضد كسكو دريها بين دار ما اسكسو قوينة يا وحول دار بدن يا وبين أرناي أنت ما قرنايسها يا مناع للخير خيرك أنت علي وناك أنت علي هماز ضدكو مارتي دريا وحكي شيء إيشو جبي أكو جبي سنتوا اللعي كانوا يسعوا حوي وحوق يا إلهي سبحانه ولا تلمزوا أنفسكم آيات كروي ويل لكل همزة لمزة أيوة أخلاق لك على أخلاق لبني آدم كتوسين وعلمي علم الأخلاق ما لا يرى هذا علم الدم وهي أو قرآنك ينبريه علم الإيمان كسر نبريه أو آخرتي يكتبتي يا إيمانك يا ملائكتي سر نبريه هذا أنا علم ضدك كل دغميز نبريه تصالح أخلاق كنتوا نبريه كونوا مع الصادقين ضاع لمن نبريه أوفوا بعهد الله إذا عاهد يا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله أمانة إنه خفكم يشوا يا أو أمانة وكل رقمه وهو إن بريا بلن أوفنتا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم أوفوا بالعقود بل ما أقشان كونتراكتي لا أقشان يا هشيسي لا أقشان أوفية هكذا حنا حلاشعنا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا حارات إسكداية ذروا ما بقي من الربا يا عدالة نبر إن الله يأمر بالعدل يا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ذاتك هدال حتى وحكالي إبسان إنسان يا ويل للمطففين كوا ميزانك هوجينية كرادمية هوج بيلي وأنا دكان كيس جوجو أو حوجا مسجاي حوجا بدر قليا عنكو كهذا يا أخلاق دي سوتشينية من غشنا فليس منا لما رأوا إنه مريها يدرك علابته يعنتظر يخضارته يوحو قليو إنه قشك خيارك سميه أو ضدك ومارتك كمية هذا الكتوسم بين فريا بعد النماذج أي إن فريسا والدين تقولوا حساب فلو ضدك أردن إحسان خاصة قرابة يسكية ينقل نقطه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وآيات جامعة صدحنا والله نفري صدحنا والله نقرب إلهي سبحانه وتعالى وعند فريا عدالة وعند فريا إحسان وعند فريا ذلك قرابة هنا الحق والسيسان وحيد كربيا ينهى عن الفحشاء أرماها فوش حنونا دنبيل فوش حنونا يا أوزنا ذا إيه حتوية ذا إيه بالنفرية ذا إيه ما عيدا إيه محنكو شيء دريدا دلك بغير حقها ما وحصلنا يعني ظلم ناس وحصلنا فحشاء أنا عن الفحشاء والمنكر وحدن بقى والله ينكره قلبه ينكره ودينته ينكرته خلاق دينته باليدي حديدين والبغي حد قدم قف كلينا تكون حد قدمته يا ورالك خاصة ورالك أو مسلم وكل جوه يا سعد ضد مقور سنة يا ضد الأورنا يا وكلا بر بني آدم كان نصوي أذوق حتى هاف 50% أنا وروحنا 100% حقيقة كانت انتيك إيمات ما من أين جاءت حقيقة يا شيء من نقام وحشي بلا يشكتي يوحنا قرآن مركا أخلاق دي قرآن ساسو قال يا علمي ديني ساسو وحال ربا مركا إنا وقت سيسو وحكبرته أدو أرضية أو إنجينيرين ديغاناي أو فيلسوفي ديغاناي أو ميكانيكال ديغاناي أو ميديسين ديغاناي أو جيولوجي ديغاناي أو بطل ديغاناي أو ماريتيم ديغاناي أو كمبيوتر ديغاناي وحاد دونتو ديغو أيها هدنا وقت إنا سيسو علمي شرعي دين تهذا إيمانك أخلاق إلهي سبحانه وتعالى حلاشي حرانتا إلى كتابك أصل كها ماشي اللي كنت الله هي إنا يلا هذا تعرف وقت هذا ما نجريسو موجودة تنا الحوق صارته وماشي تكون شقينيسي وتكون تخصصيسي وهذا مدة حكون تريسي إذا لفت كذا إن الإله أني يسته إذا لفت كذا عبادة وقادة نيسا عبادة يكون نقنيسا إذا لفت كذا مركز أمضي دين إلهي أدمارتي يكون نصرينيس لكن أنت مركز كسر تكتب قرآنكو هذا علومتي مادية أهيد إشارة بكل بهنايا الدون كان شرعي مثلا قف والبقو هذا كان كم ذو برنايا هديه القرآن كسفي عن آخره وحو أركيا إنه القرآن إنه براروجينيو
maxaa dhacay koonkan inagu baraarujinayo cilmiga maadiga ah maxaa dhacay koonkan sida aan sheegnay ummaddan waxaa loo soo saaray inay ummadaha hogaamiso adduunkana ay camirto diintana ay ku hogaamiso xaqana ay ku hogaamiso cadaaladana ay ku hogaamiso ku dhaqo saasaa loo soo saaray إلهي إن الله إلهي سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر marka waxaan wax ka soo qaadayaa dhalinyaro khaasatan ardaydiina hadda ku jira culumta kala duwan ee dhulkeenni Soomaaliya ay u baahan tahay maamulka iyo hogaaminta iyo maareynta ishaaraad baa ku jira quraanka tusaalayaal baa ku jira macnayaal buu nooga tilmaamayaa tusaale ahaan shaqada iyo in camalka ama shaqada loo hagar baxo oo la noqdo dad yani shaqadooda si fiican u guta ya oo u jarmaado oo u kalaxa in la noqdo buu tilmaamayaa wuxuu noo tilmaamayaa khayraadka ilaahay subxaanahu wa tacaala nasiye kala duwan oo aqoon in lagula soo baxo oo lagu maamusho u baahan يا أقون مباشر خيراتك إلهي سبحانه وتعالى ينعمويك إلهي سبحانه بيه بد روك إن وبيده بضه وحا كجرة انت بقى إن بيرها يمرها صلى الله عليه وسلم برت يوحى كستوء لقسم نفع بني آدم كأوله buuraha iyo macaadinta iyo khayraadka iyo waxa dhan oo ku jira kullu waxa way tilmaamo oo qofku fahmi karo in lagu baraarujinayo waxa kan aqoonteeda inuu yeesho maamulkeedana yeesho kana faa'iideeyo bay ugu jirtaa meesha tusaale aan soo qaadano suuradaha quraanka ugu dheer waxay ku magacaaban tahay al-an'am suuratul an'am suurad dheer way marka ku soo aragto sababtana an'amta ku jirto wal an'am ya ilaahi subhanahu wa ta'ala uu kaga hadlayo marka geel iyo lo iyo ari iyo anwaacdooda iyo mushrikiintii waxay ku sameyn jireen iyo waxa ilaahi subhanahu wa ta'ala uu abuuray iyo waxa ilaahi xalaaleeyay ayaa ilaahi subhanahu wa ta'ala ku tilmaamay meelo kale oo aayaadka kale ah suuradaha kale ah oo magac an'am ku magacawnayn uu ku tilmaamaya inuu an'amtan nicmooleeda geel iyo ari iyo lo inoo abuuray inaga bani aadamku uu abuuray inuu nafacsado bani aadamku baa ilaahay subxaanahu wa ta'aala u sameeyay wal an'ama khalaqaha lakum idinku idin abuuray ayuha al-insaan idinka dad iyo bani aadamka خلق لكم نعم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون صدح كلمة دودوة فيها دفء هو دجال وحقيقة يمحولها هي دجال حقيقة محايس كسو قلن محانا وجروا أنك دجال داركي بالغا سمينية شاكدي بالغا سمينية دغرتودي بالاستعمالية هرقودي بالاستعمالية موجودة ولا هو ليه ولا جوجلنيا وقريها صابي سنية وحبال غير طولانيا يا واحد بدن بالمصمس واي منافع كلا تربضن منافع كلمة داس منافع إلهي سبحانه وتعالى وكتلمام وحي تلمام يسا علمي هذا يعني جامعتها قاركاد ما قرنا يعني هذا إمي سأرضيبها أما مرسين أما إسطنبول أما هذا تركيا كان لأنه أما أنقرة جوكته حولها كتخصص حولها سيد الله نقي هدي أدوي ديسان يدين شيء دونان وحلقة طورية هنا للجرين إنه صوماليا مثلا نافك مركان قالنا هيرب كان قالنا حتى هيرب كجودها كجرة بيرك كليان كربحنا أنت كلا حتى وطورنا ما قلت أنت كلا عطورنا هرق أي بضح أي مجهة أي أنت نواتورنا كله يا كل واتورنا وضعنا ما شاء الله قلت قال حقال هيلبك كليان كقالنا بس لكن هذا ضد كان كنت تخصصي أدوي الديسان أما أرضي كجرت أدوي الديسان وعلم دن وأدونكو هذا وماركتي تطويرنا وهرمرنا
xoolaha sida loo dhaqo sida looga faa'iideysto sida loo kobciyo sida loo badiyo mawjada oo looga faa'iideeyo marka mar dhaxdaas nin Soomaaliya oo ku takhasusay arrimahaas oo professor ku noqday jaamacadaha reer galbeedkana wax ka dhiga oo cilmigaas laftigiisa dhiga wadamada qaarkoodna xataa khabiir u ahaa ay ka faa'iideysteen cilmigiisa ayaan mar la fariistay oo kala sheekaysanay xoolaha aan leenahay iyo dhulkeenna inaga wax xoolayaala markaasuu tilmaamayay wuxuu igu yiri hadda ka hor sheekhow waan qoray article baan qoray aan leeyahay batroolka wax ka qiimo badan baan haysanaa oo ah xoolahan soconaya batrool soconaya aan ku tilmaamay batrool soconaya ayaan ku tilmaamay marka sidee baa ku tilmaamay wuxuu ku yiri hadda wadamadan galbeedka oo Yurub iyo shaqeeyaan xoolaha waxa la soo xireynayaa bisha Abriil September markay gaarto suuqa la geynayaa qaar ka mid ah la iibinayaa caanihi dhogortii lafihi wax allaale wixii neefkaas ku jiray hilibka oo dhowr iyo 20 kiilo ah gaar loo saari waxa kale to dhanna gaar loo saari gaar ba loo iibin marka waa manaaficdi ilaahay subhanahu wa ta'ala sheegay iyo wixii laga cunaayay hadii laakiin aqoon aan loo lahayn xoolaha quraanku markuu ku tilmaamay an'aama biha manaafic ba ku jiro ku yiri manaaficdi adiga la rabaa inaad raadiso marka inaad barato cilmigeeda barato hadii la yiri marka jaamacada lagu baro adduunkiiba bani aadamku ugu bartay cilmiga annagu mar baan bilownay iyagu mar bay naga qaateen reer Yurub haddana dib buu noogu soo noqonaya haddana waa sii noqonaya cilmigu waa wareegaa bani aadamku oo dhan buu ka dhaxaya marka jaamacada loo sameeyay la yiraahdo waa inaad barano oo dad ku takhasuso oo laga faa'iideeyo haddii xataa aynu weyno dawlado ihtimaamkaasiya dadku iyaga ka shaqaysan kara adigu intaad arrinka ku takhasusto baad reerkiinii oo xoolahoodii ka gaajaysan intaad u tagto baa waxaad dhihi kartaa nabi Ibrahim siduu ku yiri aabihis ya abad inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik abo ilmi aadan hayn baan hayaa mirsiin baan ka imi iyo Istanbul jaamacad baa xoolahan ariga uga soo baxay duunkiisi xanuunkiisi caafimaadkiisi iyo dhogortiisi iyo caanihiisi iyo hilibkiisi wixiisa loo badiyo kaale aan tusay reerkii oo dhan inta tusto oo cawski u beerto oo xanaanadii u samayso oo sida loo dhaqanayo u tusto ilaa Soomaalidu hadda ma dhaqato ma taqaano cilmiga dhaqashada xoolaha Soomaalidu ma taqaano Soomaalidu xoola raacato laakiin xoola dhaqato ma xoola dhaqato waxa ah wadamadan aad aragteen oo xoolaha ka faa'iideysanaya Australia New Zealand Denmark Holland كذا Ireland فلان حولها way dhaqadaan way ka faa'iideystaan inagu waa raacnaa laakiin kama faa'iideyso marka dhalinyaradiinaan wax baranaysa majaalaad kala rabo oo quraanka iyo diintuba ay idinku dhiirigelinayso inaad wax ka barataan waa kuwan oo kale kadibna intaad noqoto ninka jaamica islaamiga ka soo baxay ee fiqiga soo bartay ummadii buu imanaya xalaashii xaaraantii buu baraya adigina inta timaado waxay cuni lahaayeen iyo waxay ka ganacsan lahaayeen iyo waxay ka shaqaysan lahaayeen shaqadoodii ba adiguna baraysa labadiina waa simantiin ilaahay agtiisana waa simantiin niyadiina qof walba ilaahay subhanahu wa ta'ala u qaaday labadiina quraankii baad hirgelinaysaa ma fahamteen marka say isu waafaqsan tahay cilmiga diiniga iyo cilmiga dunyawiga ma idin ba way dhinac kale aan ka tilmaamo qoriyihiinaan waxaa jira qaar laga yaabo inaad hadda ku takhasusaysaan badaha inaad ku takhasusaysaan masalan fisheries-ka ama kalluunka ama khayraadka badda ku jira ama may aad ku takhasusaysaan maritime-ka iyo maraakiibta iyo doomaha iyo wixii badda wixii mara maritime-ka engineering-ka ما مثلا كنت تخصص القرآن الكريم كان تلمامية وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك
fulka maraakiibta waay maalin dhaweyd waxaan arkayay markabkii ugu weynaa adduunka maalin dhaweyd waxaa sameeyey dalka South Korea wuxuuna u sameeyey shirkad reer galbeedka laga leeyahay reer galbeedka ay leeyihiin laakiin laguma samayn galbeedka laguma samayn waxa lagu sameeyey South Korea samaysay بالمناسبة هذا تركي كان أنجوجنو أما إذا كان عرضية هذا محاضرة صوت أيشو كان إن بدنا نكمله حاجة سماين مراكبتا صنعة مراكبتا إن هنقطة قوة حمولك أما هنقطة قوة راحة أو يختس كلاي قانو يا وضن كصدحات ويختس كأدونك تركي وضن كصدحات ويسميه أدونك لعلمكم هذا وهذا وضن كصدحات لو وضن كليا كهر يا لو وضن كليا أيها كهر وحين كنت ذلك يعني إني ولي صو هرمران ويعاد صو هرمريان ما تقانا لحقت كسو جليس مراكبتا راحة يدل حيسك يختس أي سميان وضدك أغنية لا أي قاتان أي سدان لقى صو أوردر جرست إن لو سميه سنة كلابة بليون لعجة عن كيرين باكسو جليس ألك لابة بليون $. لعجة سنة كسوش واس انت عسكريا لو كان مركبه ولا سمينا وايو صنعاdan muddo lagu fadhinaya markab kan in la sameeyana 100 milyan 80 milyan $. buu cost gareynaya qofka laga iibinayo 150 milyan 120 milyan imisa ka shaqeynaya imisa engineer ka shaqeynaya imisa dad sanca warshada ka shaqeynaya imisa shaqo loo abuuraya malaayiintaas wadanka igelaysa sancaday ku timi marka annagu waxaan u baahanahay sayniska iyo sanacada dhalinyaro in xoog marka saartaan dadkeena Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin khayraadkan iyo waxyaalahan sida uga faa'iideysan lahaayeen sayniskan u baahan cilmiga culumtaas loo baahan marka maritime-kii hadaad ku takhasusayso ama maraakiibtii ama dhismaheedii ama maxaan ku sheegaa badii laftigeedii sida looga shaqeysan badii yani dalkiinu waa dalka ugu bad dheer xeeb dheer laakiin ugu faqiirsan marka waa laynagu kuuyeeyaa waa laynagula dirirayaayo waa laynagu haystaa dacalada layna haystaa lugaha iyo dibaa waxaa la leeyahay war kuwan xeebta iska aga fadhiya ya waaba yiriba dee ra'iisul wasaaraha Ethiopia waaba yiriba wuxuu yiri bad iska dheeraatay oo 3,000 kilomitir ah in la iska daawado wax maaragtay macnaha ay sameynayso ma hadana waa iska daawanayna macnaha waa daawanaysaan idinkuma fiirsan karo in laga faa'iideystaan raba meesha marka maalin dhaweyd waxa aad ii farax gelisay oo clip halkaan aan ka arkay magaalada Garacad dad intay isxil qaameen ganacsato iyo dadka deegaanka deganaa inay deked in meesha laga dhiso magaalada Garacad ay sameeyeen ayna bilaabatay shirkad Turkiya meesha iga muuqatay oo dhisaysa qayb kamidana la furayo badiyo waxaan arkay alaabtii la dhigay dhagaxii la dhigay oo dekadii la geliyay war wuxuu haddii ay sida u fududahay oo dad ay maaragtayba isxil qaamay samayn karaan dawladaha iyo maamulada iyo nidaamyadu maxay samayn karaan baan isweydiiyay haddii ay wax qorsheeyaan maxaa dhacay oo dalkeenu hodan wuxuu ku yahay badahan ilaahay siiyey kasoo bilow halka kasoo wareeg Kismaayo iyo Rees Kamboni إلا بدع Indian Ocean كأردن 1,500 كيلومتر تقريبا أي مارة كلا كان دين عن كلا كسر بلو قرتفوي إلا جبوتي أتكجرتو يدنا واحد تاسو هذا بدع عص يخليك كعظم بدي عرب كنا قربي كتاي صدح بدوت بماشي سوي مان الدون كي ترافيك يسيرن بمريا ما ندويد وحن حوجا يعني آخر شو سميه إن في ريوبل بلهن يدكدهن فائدوين كود يوحى الله سمينا هذا مثلا مرينada uu ka soo baxo maraakiibtu marka ay ka imanayso Europe iyo Mediterranean ka ama badan maaragtay cad markay ka imanayso dhexe badda dhexe Khorisways waa inay soo maraan haddii ay Atlantiga iyo dhinaciisa soo marayaanna Cape Town waa inay ka soo wareegaan haddii kalena dhinaca Turkiga iyo Bosforka iyo badda madow oo xagga ay Russia ay ka aadaan
adduunka marinadiisa muslimiin baa inta badan fadhida kulligood markabku markuu ka soo dhaqaaqo Suez oo Masar oo uu ku socdo مثلا Far East-ga hadalkayga si fiican u dhageysta China u socdaa Singapore u socdaa dekedaha waaweyn oo dhinaca Malaysia u socdaa xagga u socdaa okay ma fahmi wuxuu sidaa xamuulka ugu weyn oo 100,000 tan 150,000 tan buu sidaa sawma Suez ka soo baxay wuxuu baahan yahay konteenarada qaar Afrika u socda kala bar xamuulka inuu dejiyo oo meel kale deked kale ku dejiyo kadibna xamuulka intiisa kale oo xagga Aasiya u sii qaado مثلا for example waayahay markuu soo maro Suez ka soo dhaqaaqo markabka 100,000 oo tan u wada intaas xeebahaas badda Carabta iyo badda Cas iyo Indian Ocean-ka agaarkeeda u dhow hal deked oo uu ku degi karo ma jirto oo aan ahayn Dubai Jabal Ali aan ahayn ma jirto dekedaha kale yar waa ka yar capacity-gooda yar markabka ugu badan oo keeni kara waa 30,000 tan 40,000 tan haddii uu sido meelaha waaweyn way waliba uu ku xiran karaa laakiin facility-ga inta leeg wuxuu ka heli karayaa مثلا جبل علي بوكيليا oo kamida 10 dekedood adduunka ugu sareeya ama ugu shaqo badan marka adduunki baa tartan ku jira waagii hore adduunka waxa haysan jirtay deked ku taala dalka Netherland ama Holland oo la yiraahdo Rotterdam waa magaalo Rotterdam saad garanaysaan magaalooyinka Holland kamida waana deked 400 kilomitir iskuweera dekeda magaalada dekedaas kaliya way ayay ku investigaraysay Holland inay adduunka ku qabsato wax badan exportiga importiga iyo kala wareejinta containerada Europe oo dhan iyadoo dekedaas ay soo Rotterdam marka number 1 bay adduunka macruuf ah siimaanadii odayaasha hore siimaanada weydiiye Rotterdam iyo Liverpool iyo meelo kaaga sheekeena waxay calan wallayso Rotterdam oo adduunka haysato oo dekeda ku haysato Singapore soo baxday dhulkay ku dhifatay macna adduunka bani aadamku uu kala faa'iideysanaya Singapore waxay ku fikireen waayahay Rotterdam Holland iyadoo dal yar ah oo 15 milyan hadda dadka 18 milyan ama 20 milyan dadkeedu yahay ayay ka faa'iideysatay dekeda inta leeg dalal ka waaweyn oo Ingiriis iyo Jarmal iyo oo ka magac dheeraatay ما أنا ما سمعت كلام مركز دكان إيران سمعته أنا سنغافورة أهو 4 مليون 6 مليون مركز دكان ده أنا يقدر يدوت وحوين ويكو بياريين وحي سمعين سنغافورة دكان وهوين الدونكا نمبر 1 بيتفت ويكا قاد عالم كي كلام وحي عالم والله يسو China صوب هذا 20 سنة قدام بس China أيها سواك عالم China waxay aragtay dekedu inay kamid yihiin waxyaalaha ganacsiga adduunka isku xiraya dhaqaalaha oo dalka ka soo galay dadkuna shaqo ka helayaan dhaqaalaha oo la dhaqaaqayo dekedii ugu waaweynaa marka xoog gelisay inay samaysato Singapore number 1 ki calankii waa laga qaaday keen baa la yiri calanka Shanghai baa kala wareegtay calankii Shanghai baa calankii kala wareegtay hadda calanka Shanghai baa haysata marka haddaad ihsaa'iyaadka u noqotaan ama aad fiirisaan steady niradina sameeya oo kulli ama siyaasiyiinta oo ka fikiraya xataa waxyaalahaas waxaad arkaysaa boorka inay ku kicisay Shanghai oo Singapore oo number 2 ah hadda inay soo gaarto waqtigan ma dhowa inay soo gaarto waayo 30 milyan oo container bay maraysaa meesha la yiraahdo maxaan ku sheegaa Singapore 40 milyan bay ku dhowdahay Shanghai gab dheerba marka u dhaxay arabta Dubai joogtaa ha u malaynina in Jabal Ali ciyaar uu iskaga yimi ama Dubai dekedayska Dubai resource badan male odagii magaaladan sameeyay Rashid bin Abdullah al-Maktoum Rashid bin Said al-Maktoum bandheera odagii ahaa amirkii Dubai sheekhi Dubai Jabal Ali oo aan jirin dream bay ahayd agtiisa
maxamed bin raashid kitaabkiisu kaga sheekaynayaa aabihiis markii uu dhisayay waxaa jiray miinaa yar oo deked ah oo miinaa raashid la yiraahdo oo odaga ku magacaaban oo Soomaalidu xataa ariga iyo xoolaha ay geyn jireen ilaa haddana ay geeyaan oo dibay ay ku nooshahay baa jiray Soomaaliduna aad bay meeshaas muxtaram uga ahayd kadibna odagu wuxuu ku fikiray wax inta ka weyn meeshaan waxaan ugu iman jiray buu yiri galabtii isagoo shaah ku cabaya bacaadka yar ee agtiisa ah ee fadhiya oo badan daawanaya waa dream waxa la yiraahdo waay goorma meesha noqonaysa goorma saas noqonaysa haddii meesha saan aan ka dhisnaa maxay noqon lahayd waa qof riyoonaya waay dream waay marka dreamkii waxay ahayd ninkan maxamed bin raashid hadda jooga aabihiis raashid bin saciid ayaa dreamka jabal cali lahaa kadibna raggan wax bartay dhalinyarada markay soo kaceen Singapore bay u dirsadeen team dhan oo soo daraaseeya teamkaas uu muddo fadhiyay Singapore wuu soo daraaseeyay wuu soo koobiyay kadibna nusxa kaleeto ay iyagu markaa jabal cali ka samaysteen sidaas bay ku noqotay jabal cali inay 10 dekedoodo adduunka tartanka ugu sareeyo ugu jira meel damay kaga jirtaa waxaan filayaa 10aad mise 9aad waaye laakiin inay tartanka gasho top 10ka ay gasho halkaas ay ka soo gashay China marka arrinkii way sii xoojisay ilaa iyo 7 kamida iyada China waaye 10 ugu sareeya adduunka 7 kamida China iskale saddexda kale hadda ku jira top 10ka waa Singapore iyo Busia oo maaragtay meesha la yiraahdo South Korea iyo Jabal Ali marka anu maalintii dhaweyd markaan arkayay garacad waxa yani dreamkaygu mar walba ahaa Soomaalidu inay muahal u tahay ayna tahay inay ku fikiraan dadkeedu inay ku fikiraan ay tahay meel hoose inay ka fikiraan maaha meel sare maxaa dhacay badii bay haystaan nooc kala nooc ah oo Afrika ugu dheer oo marinadii bay fadhiyaan marka hantidan ayaa waxay tahay lacag adiga shilin kala laga rabo wax shilin ma dhiibis maalin hore waxaan la isku darsado adduunku uu ku kala iibsado dalkan Turkiga hadda airportkan ugu weyn adduunku ugu weyn yahay leeyahay Istanbul dawladda hal shilin kagama bixin waa investment PPP waaye public private partnership way marka Soomaali oo haysata hantidaas waxaan mar walba isweydiiyaa maxaa dhacay marka fiiri Suez markabkii ka soo dhaqaaqay waxaan qiyaas hadduu rabo alaabta inuu dhigo waa inuu Jabal Ali tagaa Jabal Ali inuu soo soconayaa 2,000 taqriiban oo nautical miles mujaraya 2,000 nautical miles ama 1,800 marka uu yaraato waayahay hadduu Far East u socdo soo uma fududaan lahayn Djibouti ama Berbera ama Boosaaso ama Calula Gardafuul soo uma fududaan lahayn intuu saa u daadiyo inuu hore u sii socdo toos straight u sii baa laakiin facility meeri kara maya meeri karo facilities meeri u keeri karo ma jirto aan ahayn Dubai waa in Dubai ku geeyaa alaabta halka kugu daadiyaa oo ka keenay halkaas kadibna doon inta lagu soo saaro Boosaaso ay kugu keentaa ama Berbera kugu keentaa ama marka kale yar inta la soo saaro gabana oo Berbera kugu keenaa ama Djibouti kugu keenaa ama Boosaaso kugu keenaa way ku dhaaftay ugu wad mar bay ku dhaaftay kostigiina wuu qaali noqday lacagtiina way ku kordhay shidaalkiina wuu ku kordhay kadibna dib baa lagu soo celiyay markuu halkaas tagay dib baa lagu soo adduunku meelo ka shaxayo marka waa sabab la fahmi karo maxaa dhacay oo DP World shirkadda la yiraahdo oo Jabal Ali maamusha ay u rabtaa inay qaadato Berbera ay u rabtaa inay qaadato Boosaaso ay u rabtaa inay qaadato Djibouti ay u rabtaa inay qaadato Cadan ay u rabtaa inay qaadato Suudaan ay u rabtaa inay qaadato Eritrea ay u rabtaa inay qaadato xeebta bahar badda casoo dhan waxa yaala inay qaadato maxaa dhacay iyay meesha Singapore kaleeto ama Jabal Ali oo kale igaga soo kicin waay qasad kale ma jiro wax kale jira ma jiro meeshaan hadduu ka soo baxo mid Jabal Ali la mid ah aniga waa ii dhamaatay waay Jabal Ali waa u dhamaatay maxaa dhacay istaraatiijiyan waa laga fiican istaraatiijiyan badda waa laga hayaa Suez markuu ka soo dhaqaaqo Berbera wuxuu u soo soconayaa 800 ilaa 600 oo nautical miles uu soo soconayaa
جبل علي نكون يسدد مقولوا إنه يتكلم ما اسمه كتير يا محا كلفة إنه هذا جبل علي هديو بربرا فاسيلتي كيلا أما بوس هذا كيلا محا كلفة يا مجرم مركب ميلان كلا تو هذا سبب تراكتي يخص ما ينسو مركب دنيرو هذا كي وزوج بالجبينية قرآنكم مركب وتلمامه يبضع وربضع إذن ليه هاي ما واحد ربتين مركب كتاب ساينس إنه نقضه بدي إني كلا بيقولوا إنجينيرينج ما كتاب قرآن إذن كشاهي ما كتاب ساينس إيه جغرافي إيه مارتي طبي إيه إنجينيرينج إيه حولها إيه كذا لكن ما توب وكل شارية هجامنتي يدني كلا إيمانكي مانجمنتي إدارتي محاسبتي وكو إشارة دمان علومتي أردن قرآن كو إشارة الدون كتير لغو مامور لها يا آخرة كتير لغو مامور لها أنا وكوه هجامنية إنك على الرواء إنه نقرأ نظام صنو لابد نقص عنه أين نسديد سنين أديك برانا يا علمي ماديها أيها وحال الرواء الدين تادنا wixii aad qof muslina oo toosan oo maskaxdiisu nadiif tahay oo xor ah aad ku noqon lahayd inaad kala soo baxdo kitaabkaaga hadii kaleeto cilmigaaga maadiga ah wax weyn ma tarayo meelna kuma geeniyo intaas baan galabta dhalinyarada rabayna la wadaago ilaahay subxaanahu wa ta'aala tawfiiqdaana waafajiyo khayrkana ha nagu toosiyo cilmi naafic ah iyo amal saalix ah nasiyo ramadaankana allah naga aqbalo tawfiiqda allahna waafajiyo leelatul qadriga allahna waafajiyo انت عساني كريتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته